Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal looga shakisan yahay inay ku gantay hawada Japan, taasoo u muuqata mid si ula kac ah loo riday si loo jiheeyo dareenka maamulada Tokyo iyo Washington. Gantaalka balaastigga ah ayaa waxa uu ku socday ilaa 4,500 kiiloomitir oo ah 2,800 mayl ka hor inta aanu ku dhicin badweynta Pacifiga. Waxa uu gaari karaa haddii mar kale la rido jasiiradda Guam ee Mareykanka. Waa gantaalkii ugu horreeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tuurto Japan tan iyo sanadkii 2017. Riditaanka gantaalka ayaa ku soo beegmay xilli dowladda Japan ay soo saartay digniin naadir ah oo ku socota muwaadiniinteeda si ay uga feejignaadaan. Qaramada Midoobay ayaa ka mamnuucday Kuuriyada Waqooyi inay tijaabiso hubka balaastigga iyo hubka nukliyeerka. Ridista gantaalka ee ku wajahan ama gaaraya wadamada kale iyadoo aan wax wargelin ah loo gudbinin ama lagala tashan waxay sidoo kale ka hor imaanaysaa xeerarka caalamiga ah.